بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي عادة اهيت وحان ربا inaan idin asiyo xogtii ugu dambeysay update ah oo ka soo korortay xaaladaha coronavirus Soomaaliya. 24 saac u dambeeyay waxaa soo kordhay 41 xaaladood oo positive ah. 31 waa lab 10 waa dhadig. halkiis oo kamid ah wuxuu ka yimid gaalkacyo South-ka oo galmudug ah. laba bukaan waa dhimatay, Ilaahay ha u naxariisto. laba kalena waa caafimaaday. tirada guud ee coronavirus Soomaaliya la xaqiijiyay hadda waxaa waaye 328. dhimashada guud ahaan waxay noqonaysaa 16 xaaladood. inta bogsootayna waxay noqonaysaa 8 qof. dhimashada boqolkiiba 69 waxaa waaye boqolkiiba 50 ka badan waxaa waaye dadka da'dooda ay ka badan tahay 50. waxay u badan yihiin intooda badan dad xaalado caafimaad oo kaleeto cudurro zaid yani cudurro chronic ah qabi. boqolkiiba 69 dadka da'dooda waxay ka yartaa uu ku dhaca cudurka waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 40. nambarada waa korayeen sidaad u jeedaan. xanuunkii waa fidaya. waxa aan ku celcelinaynaa waxa waaye ka hortagga wuxuu ka fiican yahay daaweynta. inaan ka wada tashanno oo isku ogaano oo aan ka wada ballanno mar walba sidii cudurkan loo xakameyn lahaa. wacyigelinta in aad loo badiyo. waa bil Ramadaan barakaysan. Ilaahay fadligeeda ha nagu xafido. Ilaahay ha noogu caafiyo inta cudurka uu qabo sida uu ku socdo iyo aafadiisana Ilaahay ha naga ilaaliyo. inaan ku dadaalno walaalayaal in yacni meelaha ciriiriga laga fogaado, in bixitaanka aanan danta ku jirin oo aanan muhiimka ahayn la joojiyo, in il gaara lagu ilaaliyo dadka xaaladaha caafimaad guud yacni aysan fiicnayn ama difaacooda jirka uu yaryahay, in nadaafadda aad loogu dadaalo, in gacmo dhaqashada saabuunta iyo alcohol iyo wixii qofba mar uu awoodo uu badiyo gacmaha la dhaqo ugu yaraan 30 daqiiqadba mar ilaa 20 ilbiriqsi. guud ahaan waa ku celcelinaynaa cudurka waa cudur aad u fidaayo. xaaladaha qaarkoodna aad uu yacni khatar ugu yahay xaalada gaar ah. in laga fakaro mar walba sidii looga hortagi lahaa. cudurka waa jira, fididiisa saad ka garanaysaan maalinba maalinta ku xigto waa sii kordhaya. inaan wada dadaalno, aan ducaysano marka hore, marka labaadna aan kala fogaanshada takhaatiirta iyo dadka khubaraada ku takhasusay arrimahan caafimaadka in la dhageysto. 449 qofka haddii uu dareemo calaamadihii cudurka in qaarkood uu qabo inuu wacdo nambarkan mar walba ku celceliyo. la talin la siin doono xaaladaha loo arkay in isla markii loo wareejiyay isbitaalada loogu talagalayna runtii isla markii waa la badiyay servicekii adeegii caafimaad ambulance-ka waa la badiyay nambarka. waa la badiyay nambarada la soo wacanayo habeen iyo maalin waa la jawaabaya. qofkii wuxuu awood u lahaanaa isla markii in la raadiyo la keeno isbitaalka si daawo degdeg u helo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu na wada caafiyo, inuu cudurkan aafadiisa iyo shartiisa na dhaafiyo. aada u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ku dardarayso oo ay ka badbadinayso tusaale ahaan inay ujeedooyin kala leedahay. marka taas ma la oran karaa dawladdu waxay fursad u aragtay cudurkan oo doorashadii rabtaa gabi ahaanba inay ku joojiso. subxaanallah, aniga wasiir caafimaadaan ahay. ujeedadayda ugu weyna waxaa waaye dadka inaan horta runta la wadaago. xaaladda say u jirto xaqay u leeyihiin. waajibna saaran waa inaad bulshada u gudbiso. sababtaasaan galab walba hortiina u taaganahay oo aan u sheegaya wixii soo kordhay. dawladda iyo guud ahaan aniga wasiir ahaanba waxaan ka jeclaan lahaa maanta inaan hal case laga helin wadankeena. waa waxaan jeclaan lahaa sir ma aha. siyaasad ma la siyaasadaynayo cudurka. wax kuma raadinayno. waa inaan sheegnaa xaq loo leeyahay
muwaadin kasta inuu la socdo waddanka heerka uu marayo nasiib darro waxa waaye saddex tiradan hadda idiin sheegay ayuu marayaa waana xaqiiqi jirto dan laga leeyahayna ma jirto waa ka dignay mar walba markaan bilaabayna isbitaal martiini in la diyaariyo xaaladda guud markaan ka sheekeynayna in waddankeena uu yahay waddan iska tabaryar health sectorka uu yahay mid ku nool kaalmooyin dad kale ay kaalmeeyaan awoodeennana ay ahayn inaan sida waddamadii khaniga ahaa oo tiknolojiyada qabay rafaadkii ku dhacay iyo aad dareemi kartaan wax la baryo ma aha si dana caafimaad sanad wax laga baryo ilaahay in uu yacni nagu dhaco si dana siyaasadeed loo gaaro ma aha waajibna saaran ma aha danteenna waxa danteenna ay tahay waxay tahay bulsho caafimaad qabta isdhowrta ilaahayna ha xifdiyo insha allah tacaala ma meeshooda lagu dabiibaa mise muqdisho la keenaa waxaa jirtay in isbitaal martiini 2 uu noqon doono isbitaal banaadir qalabeyntii iyo waxyaabihiina ma ku dhaqaaqdeen qorsheed sheegayseen ma la bilaabay maasanta faadimo aad u mahadsan tahay dadka sida Kismaayo oo kaleeto iyo hadda gaalkacyo koonfurta gaalkacyo galmudug laga helay waa dad sambalkooda la soo diray laga soo qaaday lagu baaray shaybaarkeena waa laga helay laakiin waxay joogaan meeshooda xaaladda guud waa la soconaa waa koraa lagala socdaa laakiin kolley taqaatiira gacanta ku hayso waa un xakamayn iyo wixii daaweyn fududeyn ah meesha ay joogaan ay ku helayaan ilaahay ha naga haayo in ma aragtay ay cudurka uu diloodo ama uu aafa u geysto insha Allah isbitaal banaadir waa loo asteeyay martiini 2 sababtoo ah waxyaalaha aan ka baqaynaa waxay tahay haddii cudurka uu fido inaan helno meel kale lagu daaweeyo hormuud ayaa ka shaqo gashay oo baaritaano sameynayso oo dib u habeen ku sameynayso waa la qalabeynayaa qalabka la dalbay oo ventilator ha ahaadaan ama ICU ha ahaadaan waxaa loo asteeyay in meesha la dhigi doono haddii alla idmo iyo meeshii kaleeto soo kororto oo loo baneeyo isagana insha Allah iyadana lagu daaweyn doono haddii alla idmo wasiir magaciiba maxamed qaadir telefishinka RTN dabcan sida la socon wasaaradda caafimaadka hawshan COVID-19 iyada ku shaqo leh dad badan ay aaminsan in dhanka xukuumadda loo leexiyo iyadoo loo sabeynayo in wasaaraddu uu musuqmaasuq hareeyay agaasimayaal loo xiray arintaas maxay u jaabaysaa horta cudurkan la dagaalankiisa sidaad la socotiin guddi ayaa la sameeyay oo qaran guddiga qaran wuxuu ka kooban yahay wasaarado badan xafiiska ra'iisul wasaaraha horjooga ka yahay culimada wasaaradaha qaarkood oo horjooga ay ka yihiin ururada bulshada wuxuu ka kooban yahay qaybo badan oo society-ga bulshada ka mid ah guddigan waxaa la sameeyay markii cudurka uu la helay oo yacni baaritaanada la sameynay waa ka horreeyay wasaaradda wax allaala wixii ka dhacay dadka u xirxiran waa dad maxkamad la soo eedayn loo soo jeedin doono maxkamad la soo taagi doono qofkii dambi galana isaga يعني واجب كيس الله مرينايا